halyey qaran marka la yiraahdo waxaa maskaxda ku soo dhacaya Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan. aniga halyey waxaan u aqaanaa ninka la yiraahdo Axmed Ibraahim Alqaazi oo Soomaaliduna ay u taqaano Axmed Gurey. ani halyeygayga waxaan u aqaanaa inuu ahaa Allah u naxariistay aadan Cabdulle Cusmaan aadan Cade. qofka iigu horeeya aniga aan halyey kala dhahayo waa in General Maxamed Siyaad Barre. halyeygayga qaran aniga waxa waaye Cabdi Bile Cabdi waxa uu ahaa nin orodyahan ah oo magaca Soomaaliyeed meelo badan oo adduunyada kamid ka matalay. halyeygayga waxaan dhihi karaa waa Elman, qof u istaagay dhalinyaradan inuu ka saaro mugdiga dhibaatada haysatay iyo waxyaalahan ku hanweynaa inuu ku garabsiyo. Axmed Ibraahim Axmed Gurey waxaan ugu doortay waxa waaye waa ninka ugu horeeyay aan dhihi karo mapka Soomaaliya sameeyay. Soomaali inta ku hadasho oo ka tirsan dawladda Cabdisiin boqortooyada Cabdisiin ayuu soo 21 sano jiro ayuu wuxuu ku fikiray inuu wadankiisa xoreeyo. sayidka oo lahaa aragti dheer oo ku saabsanayd inuu arko Soomaaliya oo xor ah dhul ahaan iyo dad ahaanba. sababta aan u leeyahana waxa ay tahay waxa uu dalka u soo qabtay iyo meesha uu ka taagnay qadiyada Soomaalinimo. waayo wuxuu ahaa qof oo Soomaali inay midoodo aad u jecel ka hortagay musuqmaasuqyo badan oo dalka ka jiray. 1987 ku guuleystay tartankii 1500 oo mitir oo Rome lagu qabanayay. maalintaasna waxay ahayd maalin calanka Soomaaliya laga taagay magaalada Rome oo adduunka oo dhan kamaradahooda fiirsanay. soo laga soo bilaabo maalintaas Cabdi Bile wuxuu ahaa aniga agteyda halyey Soomaaliyeed. sababta aan anigu ugu doortay inuu ahaa halyeygayga sababtu waxay tahay runtii wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee wadankan soo mara ayadoo iska qabsi aysan dhicin dagaal ayuu si nadiif ah kursigiisa uga degay. wuxuu la imaaday fikradii ahayd qalinka qaad qoriga dhig, taasoo runtii ugu dambeynna keentay inuu la dhinto fikirkiisa oo lagu dilo. runtii magaciisa markaan maqlo walow ani aanan xilligaas joogin haddana markaan taariikhda Soomaalida aan dib u akhriyo aad ayaan u qiiroodaa markaan isbarbar dhigo meesha maanta aan taaganahay iyo halka aan maalintaas joognay. farxad baa dareema markaan ma ismaqlo oo waxaan ku farxaa in uu jiray nin leh aragti noocaas ah Soomaaliya oo mid ah. waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala anoo nool inaan arko Soomaaliya si kastaba noqoto oo meel yani miis loo fadhida. waa jeclaan lahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo sidiisoo kaleeto u ordo. ani ma nooleen laakiin markaan akhriyo yani storigiisa iyo waxyaalo badan qisooyinkiisa ku saabsan markaan akhriyo runtii dawladnimo markaas jirtay inuu wax fiican dareema. wallahi markaan magaciisa maqlo waxaan dareemaa qiiro wadaninimo ay gasha marna xoogaa yar waxaan israadaa asoo kale ma heli doontiin. marka mararka qaarkood jiro racooda waxaan Axmed Gurey markaan aanalku waxaan dareemaa inaan jiritaanka Soomaaliya aabaheed inuu ah. aniga waxaan dhihi lahaa waa wadaniga koowaad.